istaagaan gobonimadu halkan galabtaa ku furo ninkii gaadhow ka qaat dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul Minneapolis waxaan ogeysiinaynaa inay soo socoto ruwaayad halgameed in badan aad sugeyseen ruwaayadaasi oo la magac baxday godob raagtaay geesi ku dhalay godob raagtaay geesi ku dhalay waxaa sameeyay abwaanka Soomaaliyeed ee caanka ah mahadiya ka gaadhay Maxamuud Cabdiraxmaan Kaadheeri ruwaayadaasi ayaa waxaa ka qayb qaadan doona fanaaniin caan ah oo qaranka Soomaaliyeed sharaf iyo maamuus ka qodnaa waxaana kamid ah Shankaroon Axmed Sagal waxaa kaloo iyagana ka qayb qaadan doona Fuaad Abwaan Fuaad iyo dhalinta OYC iyo Minnesota iyo fanaanada North America ugu caansan waa Tuma Raxma Roos marka waxaan idin leeyahay riwaayadaasi ka soo qayb gala waxayna dhici doontaa taariikhdu markay tahay May 23 2015 maalin Sabti ah waa Sabtida nagu soo fool leh taariikhduna waa May 23 marka meesha lagu qabanayana waa Convention Center oo aad wada taqaanaan oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis marka waxaan idin leeyahay balanteenu waa maalintaas iyada ay Sabtida May 23 iyo goobta lagu qabanayo waa Convention Center marka sidaas ayaan oo balana guusha iyo istaagaan gobonimadu halkan galabtaa ku furo ninkii gaadhow ka qaat أحمد كريمة ودبن ما قبل من درويشكي قيدوا مدالنا ما بين قامستي وحانوغا قولي عبيك يسيكعو قايان كي قوان جلي وري أبو يده أبو وري أبو وروح عن ملوك تجستر كاس وريا والله رجع دوري هذا وريا أبو يده فوق يو قوتين كار نقول قروقين اللاين نقول قرشين تتغلس يحرية قصون نقول مالكين نقيقيو قاضي السجار نقول فعلكين نقول نقول هذا الكين نقاق نقول آخر قيامة نار قوتيال أنت سجار كان نوجو عليك أنا ما كان اللي ذيك قاعد كتر مش ضرر اليوم أروح وحنا بتكي جمالي يوم بعد حرام